fariinta aan dadweynaha u diraya waxa weeye bacdama doorashadan soo socota la qaatay 4.5 ayna jiraan niman murashaxiina oo iyagu doonaya inay soo xulaan baarlamaanka halka dadku uu dooran lahaa waa jiraayo saluug baa jira baarlamaankii ka horeeyay 135tii oday dhaqameed ay soo xuleen keligood saluug baa ka jira Soomaalida oo dhan xageeda iyo beesha caalamka maanta bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo soo jeedinayaa weel gumbo ka onkama maanta waxayna horyaal sida u soo dooran lahaydeen baarlamaankii inay mas'ali lahaa oo dawlad Soomaaliyeed dhaba inay gudbin lahaa oo madax Soomaaliyeed oo hoggaan mudan inay ku hogaamiso oo dawladda Soomaaliyeed oo sharafta lahayd soo celisa oo adeegyadii aad uga baahnaydeen inay fulisa oo nidaamkii aad doorateen oo federaalka ahaa idinku aan dhayni faragelin oo idinku khiyaarkiina sida rabtaan isu raacdaan aad ku soo doorataan maamuladiina si loo baahiyo xukunka si loo baahiyo adeega bulshada oo meel walba looga baahan yahay meel walbana magaalo madaxdeeda iyo deegaanmadeedu ay iyaguna maamuladii ka sii hooseeyay oo deegaanka iyagu ay u doortaan qof looga soo magacaabo xarun aysan jirin idinku aad doorataan dastuur isku xira shaqada sida loo kala leeyahayna oo hadda wali qabyana loo dhameystiro furahaas waxa weeye waxa maanta taagan xildhibaanada imaanaya inaa idinku awoodida yeelataan nin isagu doorasho rabaay awsan isagu maanta talada intuu gacanta ku dhigo oo isagu inay xulin anigu murashax waa ahay laakiin aan cidna xulin maayo waxaan ku kalsoonahay waxa dadka ka yimaado ay xulaan oo loo xulo dad si ka bedelan sidii ayaantii hore loo xulay oo oday kaliya aan ahayn guurti wax garada oo dad wax yaqaan ah waan ahayn dad dhaqan kaliya ah dad reer magaali ay ku jiraan dad aqoon leh ay ku jiraan inay soo xulaan xubnihii baarlamaanka oo doorashada soo socota iyagoo eegaya maslaxadda ummadda iyo dadka inay u doortaan qofka maanta ugu habboon inay u doortaan inay awoodda sare yeeshaan markaa ka bacdi gudbinta way yeelanayaan oday dhaqameedyada guud oo markaas iyagu deegaamada jooga soo gudbinta way yeelanayaan dawladuna markaas way gudbin kartaa hadhow baarlamaankaas la isku dardaray wixii dadku ay soo xusheen iyadoo aan waxba ku darin waxna ka dhigin